yaa waaye. ma aqalkii waaye arag baa walaal. ibraahim oo haa saaxiib, waa isagii. hore u soo gal, iriddana soo xir, sheekaan kuu hayaaye. saaxiib soo fadhiisa oo dhegaysta adigii asxaabtaba sheekadan qiimaha badan. curwa bin subayr ayaa laga soo wariyey in lugta laga jaray xanuun asiibay awgiis. isla maalintan curwo laga gooyey lugtiisa waxaa la oofsaday wiilka ugu sharafta badnaa wiilashiisa 7 ahaa, kadib markii uu waxyeello gaarsiiyey faras, taasi oo soo afjartay gebi ahaanba noloshiisa adduunka. inkastoo uu curwo maalin keliya kulansaday 2 dhibaato oo aad u weyn, haddana kama tegin inuu rabbigiisa u nisbeeyo wixii dhacay, uguna mahadnaqo isaga oo yidhi: rabbiyow, waxaad ahaatay mid ka mahadsan, adiga ayaa lagaa yimid, dibna lagugu noqonayaa. waxaad i siisay 7 wiil, mid ayaadna iga oofsatay. waxaad i siisay 4 waaxyood oo gacmo iyo lugo, 1 lug ayaadse iga qaaday. oo aan beelay, haddii aad i ibtalaysay, adiga ayaa i caafin karo. haddii aad oofsatay wiilkayga, adiga ayaa i siin karo beddel khayr badan. rabbiyow, jannada nagu kulmi dhammaanteen. sannado dhowr ah kadib, curwo waxa uu maalin yimid guriga khaliifka, isagoo la kulmay nin duq ah, wejigiisa uu kaduutay, aragga beelay, oo camoole ah. khaliifka oo curwo iyo odayga aqoon fiican u leh ayaa curwo ku yidhi: yaa curwa, ninkan odayga ah weydii qisadiisa. curwo waxa uu ninkii odayga ahaa su'aalay: shiiqow, waa maxay qisadaada uu khaliifka carabaabay? ninkii odayga ahaa ayaa ku jawaabay: xilli habeen ayaan isku dayay inaan gooyo meel waadi ah. waxaan ahaa ninka ugu taajirsan, ugu xoolaha iyo carruurta badan wakhtigaas. si kastaba arrinku ha ahaadee, waxaa dhacday markii aan gudaha u galnay waadiga inna lagu qarqiyey daad xoog badan oo qaaday carruurtayda iyo xoolahayga. waxaan ku waabariistay oo qorraxdu ii soo baxday, aniga oo xoolo iyo carruurba midna ii soo harin, marka laga reebo wiil yar iyo waxar qura oo ka badbaaday masiibadii nagu habsatay. waa dhextaal kooban. waxaan codsan lahaa haddii aad la kulantaan dadkan camal inaad wax ka iibsataan, waayo waxay keliya ka fikirayaan quutalyoonkooda maalintaas, lagana yaabee carruur iyo waayeel baa ku tiirsan shilimaadka yaryar ee miiskaas ka soo xarooda. caawiya masaakiinta. sheekadina ha inoo sii socoto. saaxiibayaal, sheekadu waxay inoo maraysay odayga oo 1 wiil ah iyo 1 waxar ay u soo hareen. wuxuu leeyahay: waxaa iga carartay waxartii, dabadeed waan ka daba orday si aan u soo qabto. haddaba intaan goobtii ka fogaanin, waxaan gadaashayda ka maqlay sawaxan iyo qaylo. markaan dib u milicsaday, waxaan arkay madaxa wiilkayga oo dhurwaa ama waraabe afka ugu jiro. waxaan u soo degdegay inaan wiilkayga badbaadiyo, laakiin nasiib daro waan awoodi waayey oo waxaan u tegay wiilkayga oo dhintay. mar kale dhurwaagii wuxuu soo weeraray waxartii goor hore iga fakatay oo aan dagaal isaga hor imaanay, taasi oo sabab u noqotay inaan indhahayga ku waayo. dharbaaxo iiga timid dhurwaaga oo wejiga iga haleeshay, ilaa maantana aan dib u helin araggii aan maalintaas beelay. curwo oo la yaaban ibtalada ninka odayga ah ku dhacday ayaa mar kale su'aal weydiiyey odaygii, isaga oo ku yidhi: mar haddii intaas oo dhibaato ah lagugu imtixaanay, maxaa hadal ah oo tiri bacdigeed? odaygii ayaa ku jawaabay: waxaan ku mahadiyaa rabbigii i siiyey qalbi iftiin badan, iimaan saadaq ah, iyo carab xusid badan. tani waa sabarka dhabta ah, waayo Eebbe wuxuu noo sheegay in kuwa sabarka oofiyo lana yimaado uu u ballanqaaday ajar aan xisaab lahayn. ugu dambayntii, muhiimadda qisada ku jirta waxa ay tahay inaad ku sabarto qadarka teeda xun iyo midda wanaagsan intaba, adigoo ogsoon in aadanaha dhammaantiis ka siman yahay dhibaatada, balse lagu kala duwan yahay sabarka uu qofka la yimaado. waa qalinkii Cabdiqani Gaarane Barre. fadlan walaalaha daawanaya, idinkana muuqaalkan inoo sheergareeya, asxaabtiina ku soo xira janalkan waaye arag, oo aad ka heli doontaan sheekooyin, warbixinno iyo waxyaalo faa'iido leh. waa walaalkiin Axmed oo idin leh waqtigu ha idiin wacnaado.